Assalaamu calaykum. Adduunkan waxaa ku nool khalqi aad u fara badan, waxaana jirta waxyaabo badan oo ay dadkaasi ku kala duwan yihiin. Inaad noqotid qof horumar ka sameeyay noloshiisa, gacan qabto dadka kale, wax ku soo kordhiya bulshadiisa, waa riyada aan ka wada simannahay dhammaan inta uu Alle weyn abuuray. Laakiin nasiib daro in yar ayaa ka guul gaara horumarka ay ku tahmayaan, halka inta soo hartay ay ku fashilmaan noloshan. Muuqaalkan ayaad ku daawanaysaa 5 waxyaabood ee sababi kara dib u dhaca nolosha. Muuqaalkan waxaa igala qayb qaadanaya saaxiibkayga Bashiir oo ah YouTuber Soomaaliyeed. Soo dhawaaw saaxiib. Waad mahadsantahay Samiir. Waxyaabaha sababi kara fashilka nolosha waxaa ka mid ah 1. Dayacida salaada ama ka tegidda cibaadada Allah. Tani waa sababta ugu weyn ee qofka haddii uu dayaco ka dhigi karta mid ku fashilma nolosha. Maalin waliba 5 jeer ayaa maqalnaa u kaalaya guusha. Hayya 'ala as-salati hayya 'ala al-falah. Haddii aadan guushaasi u cararin, waxaad noqonaysaa qof dhan waliba ku fashilma. Lambar 2. Cararka dhibaatada. Inaad ka gambato dhibaatada waa waxa soo dedejiya guuldarrada. Ha ka cabsan, hana niyad jabin haddii ay dhibaato ku soo wajahdo. Waxaana naftaada u sheegtaa in Alle imtixaanayo lagana rabo inay adkaysato. Ka fogaaw saaxiibada xunxun. Waa qodob 3 ee sababi kara dib u dhaca nolosha. Haddii ay saaxiibadaadu yihiin kuwa nolosha ka dhacsan ama ay ka go'neen inay naftooda horumariyaan, isaga fogow. Sababtoo ah waxay ka hor istaagi doonaan inaad noqotid qof horay u socda, waxayna kula qurxin doonaan nolosha mugdiga ah ay ku jiraan. Kala gara nooca saaxiib aad leedahay. Lambar 4. Xaasidnimada. Inaad ka xumaato guusha qof walaalkaaga ah waxay kuu horseedi kartaa fashil. Xaqiiqdii, tani waxay kaa hor istaagaysaa inaad noloshaada mashquul ku noqoto. Ka fogow xaasidnimada, kana dheerow eegidda dadka kale, kana dhigo naftaada mashquulka koowaad. Lambar 5. Isbarbar dhigidda dadka kale. Inaad isbarbar dhigto dadka kale waxay sababaysaa inaadan ku qancin guushaada. Waxaadna ogaataa in Alle qof waliba uu wax u gaara siiyey. Ku qanac inta uu Alle ku siiyey. Intaasi waa 5 ka mid ah waxyaabaha sababi kara dib u dhaca nolosha. Waadna ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. Waa inuu muuqaalka xiga insha Allah. YouTube-ka Bashiir waa kan. Waxaan ka codsanayaa inaad subscribe u saarto. Waad mahadsantahay.